السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وسو دبادة قيبت لبادي برنامجكينا وأنيقو عبد الرشيد عطلابي intiina la socotay qaybtii hore waxay inoo joogtay anagoo isla soo baranay waxa ay tahay mushkilad kasta oo kusoo wajahda aanu ahayn shar qaybta labaad waxay inooga bilaabanaysaa qaybaha mushkiladaha mushkiladuhu waxay qaybsami karaan dhowr qaybood oo kala ah kuwa soo jireenaa oo muddo soo jiitamay iyo kuwa ugu baawa adiga iyo bulshada ka cusub waxay noqon karaan kuwa ku dhashay sikadiisa oo lama filaana iyo kuwa la filayay inay dhacayaan waxay noqon karaan kuwa sababooda la fahmi karo iyo kuwa ay adag tahay in la garto sababaha keenay waxay noqon karaan kuwa soo noqnoqda iyo kuwa mar un dhaca fahamka aan fahno nooca ay mushkiladu tahay waxay inaga caawin doontaa marka aan doonayno inaan guda galno sidii aan u xalin lahayn dhibaatooyinkan aan rabno inaan furdaaminno tusaale ahaan wuxuu farqi weyn u dhexeeyaa mashaakilka oogka iyo kuwa soo jireenka waxaa suurooda kuwa soo jireenka in la isku dayo mar hore xalkooda taasi waxay inoo fududaynaysaa inaan halka ka bilaabno ama taxtaacno maadaama aan fahnay in mushkiladani tahay soo jireen oo aan isweydiino su'aalahan soo socda wuxuu ahaa xalkii la isku dayay in lagu xaliyo mushkiladan imise jeer baa la isku dayay in la xaliyo maxay ahaayeen wadooyinkii loo maray xalintoodu maxaa ka hirgelay isku dayga maxaa sababay inaan laga gaarin xal imise xal baa lagu dayay yay ahayd cid doonaysay inay xaliso maxay u adeegsadeen xalinta mushkiladan dhaqaale iyo waqti intee leeg baa ku baxay isku dayga maxay yihiin sababaha saacidaya inay sii jirto mushkiladan yaa xalka qaybka yaase mushkilada qaybka su'aalahan iyo kuwa lamid ah waxay baranayaan marka aan ogaanin in mushkiladani tahay soo jireen sidee loo wajahaa haddii mushkilo kula kulanto walaal haddii mushkilo kula soo diristo waxaad u baahan tahay inaad qaado tallaabooyinkan soo socda si aad xal u gaadho kow waa inaad fahantaa mushkiladda in badan waxaa dhacday inaanan qofka fahmin mushkiladda iyo meesha ay ka jirto taasi waxay keentaa in marar badan laga raadiyo xalka meel aanan jirin ama la abuuro dhib kale iyadoo baadidoon loogu jiro sidii wax loo furdaamin lahaa sidaa daraaddeed waxaad u baahan tahay inaad fahanto dhibta meeshay ku jirto iyo meeshay kaa jirto labo waa inaad dhiraandisaa mushkilada in badan dhibtu waxay leedahay muuqaalo badan oo ka sokeeya gunteeda iyo salkeeda ayna adkaato marar badan in la xadido mushkiladii sidaa daraaddeed waa inaad dhiraandisaa mushkilada si aad u gaadho gunteeda tusaale ahaan maanta waddankeena waxaa hasta dhib laxaad leh maxaa salka u ah dhibkan ma jahli baa ma qabyaalad baa ma faqri baa ma dhulyaraan baa ma gacan shisheeyaa ma taydaraa ma hoggaan xumaa ma ismaandhaaf baa dhiraandhirintan iyo isbarbardhigaan aan ku samayno aasaaska mushkiladda waxay inoo saalaysaa inaan garanno salkeeda markaana aan abaano gunteeda xoogana isugu geyno sidii aan jirida ugu siibi lahayn saddex waa inaadan ku kadsoomin faraariha mushkiladda ogow walaa in mushkiladu yeelato faraariyo coolanka lala galo faraariheedana kama dhalato in la gaadho xal iyo dabo lagu xasilo sidaa daraaddeed waa inaad kala garan kartaa gunta mushkiladda iyo faraariyaha ay leedahay tusaale ahaan marka uu qofka ku dhaco xanuunka malaariyada waxaa la soo dirso madax xanuun matag xumad afqadhaadh iyo wixii la mid ah haddaba haddii aad qofkaas siiso malab iyo sokor si aad ugu daaweyso afqadhaadhka ma ku daaboobaya waxaa cad inaadan garan guntii mushkiladda ee waxaa tahay qof qarta jeexa ama tacaalaya faraarihii mushkiladda iyo muuqaal ka mid ah muuqaaladeedii sidaa daraaddeed waa inaad kala garan karto dhibta kuu muuqato iyo meesha ay salka ku hayso intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa axbaabii qaybta labaad ee barnaamijkeena inta aan ku kulmayno qaybta xigta sidaa iyo amaan Allah